sideedii bishan oo ku beegan habeen hore waxay ahayd markii koox abaabulan oo al-shabaab ka tirsan uuna hogaaminayay horjooga xasan muxyidiin ay isku dayeen inay gudaha madaxtooyada Soomaaliya ka fuliyaan weerar argagixisanimo waxaana weerarkaasi ay ku sheegteen inay doonayeen inay ku qaarajiyaan ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Cabdi Wali Sheekh laakiin iyagoon gaarin hadafkoodii ayaa waxaa fashiliyay sargaal ka madaxtooyada oo lagu magacaabo Mukhtaar kaasoo intii aysan gaarin bartilmaameedkoodii ka shakiya halkaana waxaa ka bilowday israsaasayn sababtay in markiiba laga soo saaro halkii ay joogeen oo u dhaxaysay xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo xafiiska wasaaradda maaliyadda maleeshiyada al-shabaab ka tirsan waxay gaarayeen 4 saddex ka mid ah waxay wateen dharka ciidanka waxayna ku hubaysnaayeen qoryaha AK47 iyo bam gacmeedyo halka kan afraadna uu ahaa horjooga iyo fududeeye waxaana ninka afraad oo isagoo nool la qabtay uu ahaa shakhsi laga yaqaano madaxtooyada iyo aageeda taasoo u fududaysay inuu awood u yeesho inuu ka gudbiyo baraha wax lagu hubiyo maleeshiyaadka wada al-shabaab ka tirsan kadibna waxa uu dhagar qabaan geeyay saddexda maleeshiyaadka ee hubaysan meelaan ka fogeyn xafiiska wasaaradda maaliyadda xasan waa xubin muhiim u ahaa kooxda al-shabaab waxaan maanta kula kulmay xarunta hoggaanka baarista ee hay'adda nabad sugidda qaranka waxaana xasan uu daha ka qaaday lugtii uu ku lahaa weerarkii madaxtooye habeen hore weerarkii kan ka horreeya isna sidan oo kale madaxtooye lagu qaaday weerara qaraxyo loo adeegsado oo ka dhacay hoteelka Maka al-Mukarrama iyo weliba hoteelka kale Oriental iyo sidoo kale weerarkii baarlamaanka dhammaan weeraradaasi waxa uu xasan ka ahaa midkii saaminayay xasan oo aan marnaba laga shakin waxa uu qirtay in ku dhawaad 2 sano uu dhagrayo ummadda Soomaaliya isla markaana uu wax badan ka qorsheeyay weerar dhiig badan ku daatay waxaana uu muuqday inuu ahaa farsamo yaqaan u carbisnaa saaminta meelaha ay shabaab wax ka fuliyaan waxa uu dheerado xasan uu qirtay inuu sidoo kale marka ay wax dhacaan kadib uga warbixin jiray al-shabaab qasaaraha ka dhashay qaraxyada ay geystaan xasan oo ahaa nin dhalinyaro waxa uu si joogta warbixin u siin jiray al-shabaab ku aadan xaaladda madaxtooyada waxaana ka mid ah waxyaabaha uu sheegay inuu gudbin jiray waqtiyada salaadaha lagu tukado masaajidka madaxtooyada meelaha ay dhigtaan baabuurta wasiirada dhaqdhaqaaqa wasiirka gaashaandhigga iyo arrimo kale oo muhiim ah waa kan xasan oo ka sheekeynaya lugtii ku lahaa dhagarro badan oo al-shabaab uu la maleegay xasan goorma lagu soo qabtay habeen hore 3 saac waxaa la igu soo qabtay madaxtooyada wax ka dhacay dagaal ka dhacay meeshaas darteeda la soo qabtay dagaalkaas sidoo dhacay iyo lugta aad ku lahayd adiga bal sheekadaas nooga sheekay anigu gaariga uun baa waday gaarigu noocuu ahaa no aniga waxa waa rag la socda meeshan jiraan laakiin ragga waxa waa rag aniga la igu soo diro oo si hadda la igu soo saaray ahayd raggana meesha geeya una la igu dhahay meesha markaa geenayga meesha nimankan ayaga dantooda qabsanay isaga soo tag haddii geen waa ka soo tagi waa meel sidoo dagaalku bilowday waa gartay marka imisa nin baad wada markaadi nimanka 3 ahaayeen 3 haye marka 3 hore muu taqaan may haye oo la soo saaray markaas xagee laga soo saaray meel wada ay joogaan ka soo qaad la igu dhahay meesha wadada ka soo qaaday meeshii oo waxay to halkaan geeyay la igu dhahay wadada boondheer waa ayagoo qolada tahaa sida askar u labisay meesha taagnaayeen ana hore una soo qaaday meeshaan in la keeneen imisa saacadeed markaas wadada kula kulmaysa 12 saac ee bare ahayd dhankaan u soo deganaysa ee waxay 12 soo deganaysa marka halka aad ka soo qaaday si rasmi ah noogu tilmaami kartaa wadada degmada boondheer marka waxay la dhaafaa iskuuska waxa la dhahaa Dr. Cooke kadib markii ay baabuurka soo fuuleen wixii ka dambeeyay ma nooga sheekeyn kartaa meelaha aad soo marteen iyo sidoo wadada caadi oo loo soo maray meesha u soo marnay meel kale oo gooni ma soo marin ay halkeed soo kaga soo dhacdeen wadada madaxtooyada soo gashay wadadan caadiga waxay ahayd oo tiyaatarka hortada maraysa soo marnay saas oo soo galnay kadibna meeshii meeshii una tagnay sideed kaga soo gudubteen bartamaha
birta sida baabuurta usoo gudbaan usoo galnay oo orada iyo si iskawaalma usoo galnay caadi usoo galnay. adigaa lagu yaqaana aniga haddii waa la yaqaana haa. wax caqabadoo aada la kulanteen ma jirtaa? may haye qoryahooda iyo waxbana uma qarsaneen? qoryahooda u qarsaneen baabuurka ku qarsadeen. haye marka ma dhar shacab bay wateen ayaguna? may waa ciidan ahayaan soo kumaan dhihin. haye cidna kuma weydiin maxay yihiin nimankan? ma ciduma arkinba, haddii la arki lahaa waxbay ahaanayd. haye kadib madaxtooyada xaggeed ka tagteen? madaxtooyada waxaa ka tagnay meeshaan oo anaga xafiiskeena agteeda ka tagnay. meel barxadda ka tagnay meeshaas inaa ku deji ahayd markii intaan la degana wixii ay meeshii ay ku fashilmeen meeshiina isqabsi dagaalka bilaawday. waana ka soo carartay anoo ka soo cararaya meesha oo aniga dhaawac igu soo gaaray gaariga kasoo degta hore iskaga soo carar shaqsi keligii anoo ah. dhaawac xaguu kaa gaaray? ya xaguu kaa gaaray? xajirka. waa gartay gaariga adiga aada waday oo adiga aada lahayd kadib wuu qarxay, ma ogeed qaraxa? gaari wax qarax ma saarneen oo asiga ku xiran, laakiin wax adiga nimankay wateen oo sida bambooni iyo miinooyin wateen oo ku qarxa gaarigii. inay ka dejistaan laakiin maysan ka dejisan wixii way saarnaayeen iyadoo saaranaya saxbada ku bilaabatay wixii saarnaa inay ku qarxeen taas aaminsana, laakiin gaari qarax ma ku xirneen oo gaari aniga oo caadi wato ahaa. marka adiga maxay kugu sheegeen nimanka ujeedkooda meesha ay usoo galayeen iyo cidda ay ka tirsan yihiin? nimanka ujeedkooda horta meesha inay tagaan ahayd. ana ogaashadeeda waxaa ka ogaa nimankan meesha noo geeyey intaas geesmada bas nooga qaab qaado markaa meesha geysan ayaa shaqadooda qabsanaayo intaas ahayd. marka al-shabaab bay ka tirsanaayeen? nimanka haa al-shabaab ka tirsanaayeen. sidaas waad ogeen? nimanka haa waa ninkii la soo hadlayo al-shabaab ahayo wuxuu nimankaa meesha geeyo dhahay. haye xaguu jooga ninku la soo hadlaya? ninku la soo hadlaya meeshuu jira shabaabka jiraanuu jira, hadda meel gooni ma jira asiga magaalna ma jooga. kuma waa ninkaa marka? ninkaasna waxaa waaye siidiga cabdirasaaq dhahay waaye cabdirasaaq saciid ibraahim hadna. haye marka adiga walaashaa qodaa? haye marka ninkaas asagaa hawshan kuu diray? asiga waxaan dhihi galshaha. muddo intee la-eg bad adiga al-shabaab la shaqeynaysa? wallaahi shaqo badan oo la shaqeynayo oo sanada ma ahayn, laakiin hal sano barka hore oo meel ku dhawaada soo wacday niyo shaqada in la qabataa rabaa niyo waxaa dhahay ninka bin u shaqeeya ahay waxaas waxaa qaban kara maahan oo ku ceebay waa iga dhaaf. wuxuu dhahay ma aanu dhahay waxaa u malaynaysid taleefon una iskala hadlaynaa bas wax kale ay sameynaysa malahan. intaas una ahayd aniga taleefon waa kala hadla, laakiin inaad cid kale iska barto ama cid kale ila hadashiiso ama cid kale iska tusto diyaar uma ayaa dhahay. saddexdan nin ay kula socotay gudaha madaxtooyada ku dhimatay magacyadooda ma taqaanaa? weligii ma arkay maantaas ka hor. intii aad la socotay maxay isku kaasheen? dabcan waad isbarateen, magacyaday kuu sheegtay? maba isla hadlinba aniga. nimana shaqo loo soo dirtay ahaayeen. anaga waxaa waa shaqadaa qabanaya meeshaa nimankaa noo geey kadibna isaga soo tag adiga. xasan waxa uu ka soo jeedaa qoysintooda badan ka mid noqday kooxda al-shabaab. laba ka mid a walaalihiis waxay dhinteen iyagoo u dagaalamaya al-shabaab. walaashiis ka yar najmo waxay ka mid tahay al-shabaab, waxaana u dhaxaa cabdirasaaq oo ah horjooga ka tirsan sirdoonka al-shabaab islamarkaana ahaa shakhsigii uu ku xirnaa xasan. xasan waxa uu watay gaari nooha ah waxaana gaarigaasi u gaday kooxda al-shabaab. waxay sidoo kale bil walba siin jireen lacag dhan $200 taasoo ahayd waxa uu ku bedelan jiray dhagarta uu u maleegayo ummadda Soomaaliyeed. waxaana xasan hadda la xiran aabbihii oo isna su'aalo laga weydiinayo waxa uu ka ogaa ilmihiisu waxay qaban jireen. xasan oo aan waqti ku wada qaadanay maanta hoggaanka baarista nabad sugidda waxaan weydiiyey bal inuu isku arkay inuu dembi weyn galay maadaama uu soo maleegay weerar lagu soo qaaday aqalka dalka looga harmiyey madaxtooye. wuxuuna ku jawaabay dembi waa arkaa qof kastaan arkayso inay dembi tahay. culayska ay leedahayna waad dareemi kartaa in aqalkii madaxtooyada aad fududayso in la weeraro adigu weliba lagu aaminay. dembi inay tahay waa danaysanahay ee khalad weyn. ugu dambayn xasan waxa uu fariin u diray maleeshiyada kooxda al-shabaab iyo cid kastoo ay suuragal tahay inay kooxda al-shabaab dhagar ku gacan siiso. waxaana uu yidhi xasan kuley waxaa dhihi lahaa waxaa waaye
ayaga waa laba qol iska soo horjeeda moogtahay nin kasta mabda ayaga ku dagaalamayaan nin mabda ku socdan hadda waxaa u sheegay qaadan maayo marka kuleyta waxaa waa mabdiisa ninka sabkiisa haysta la waa ninka tanaazulayna asii waxaa yeelkiisa waa xasan dhagar uu soo maleegaya ku dhowaad 2 sano oo ku dhex milnaa madaxtooyada iyo aagaga ka agdhow waxaa hadda u muuqataa in dhagartaasu ay noqotay mid soo ilaatay noloshiisii waxay ku dhammaatay fashil iyo xaalad khatar uu soo dhex istaagay markii uu ku soo gabagabeeyey weerar uu ku soo idleeyey markii uu ku soo gabagabeeyey weerar uu ku soo hogaamiyey aqalka madaxtooyada waxaana xasan hadda uu ku xiran yahay xarunta hoggaanka baarista nabad sugidda isagoo dhaawac uu ka soo gaaray weerarkii isaguu soo maleegay cabdicasiis afrika SNTV muqdisho